بسم الله الرحمن الرحيم kala duwanaanshaha dabeecadda iyo habdhaqanka ragga iyo dumarka mararka qaarkood markii xaasaska ama lamaanaha dhalinyarada la maslaxeynayo waxaa arkaysaa xaaskiyo leh aniga ninkan hadalkayga ma maqlaayo markii geel loo heeso goroyu u heesaa runtii markaa fiirisana labadoodii mid khaldan ma leh laakiin dhibaatada jirta ayaa waxay tahay lamaanihiiyo ogeyn kala duwanaanshaha habdhaqanka ragga iyo dumarka taasna waxay keenaysaa gurigii dhan inuu noqdo guri holcaaya tii Soomaalida ay dhihi jirtay oo kale ijiid aan ku jiiday waa gacmo daalis runtii rag iyo dumar Ilaahay agtiisa waa isaga mid laakiin abuuristoodu waa uu kala dubay si ay isu kaameelaan taasna waxay ka mid tahay xikmadaha Ilaahay runtii dad badan ayaa waxay si qalad u fahmeen xadiiskii nabigeena ahaa Allahumma salli wa sallim alayhi in dumarka laga abuuray feer qaloocan oo hada isku dayda qaybteeda kore inaad toosiso aad jabinayso nabiga Allahumma salli wa sallim alayhi xadiidkan wuxuu uga jeeday inuu fahamsiiyo macna in ragga iyo dumarka ay dabeecadooda iyo habdhaqankoodii kala duwan yihiin nabiga oo lama jeedin inuu liido ama hoos u dhigo dumarka maxaa yeelay Ilaahay quraankiis wuxuu ku yiri laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim يعني آدنها وحن كو أبورني في عن أو تمام تاسنا وحي كميتا حكمتها إلهي لكن النبي وحو كدقاي إن رقي أولا دخمان حاسسكو سيد رق أوكلا إن دمر كين أولا دخمان نمانكو دي سيدي دمركو أوكلا تاسو فوضا كينيسو مركا ومهم إنا أوغانا كلا دوانا شهر رقي دمركا تسالوين بدن آيات جيرو سيدا دمرك إلهي وحو أفوذ دي inay howlo badan hal mar isku qabtaan ayadoo telefoonka hayso oo canug inta ku hayso ay haddana wali wax sii karin kartaa haddana waxay sii maqli kartaa dad kale oo hadlaayo marka waxyaabo badan ay hal mar isku qaban kartaa laakiin ragga waxay yihiin hal shay ay qaban karaan oo waxyaabo badan hal mar isku qaban karaan taasna waxay ka mid tahay xikmadaha Ilaahay maxaa yeelay waagii hore ugaarsataa la ahay ninka ragga inuu soo ugaarsado wuxuu u baahan yahay inuu hal dhinac toos wax u fiiriyo marka sidoo kale waxa jirto dumarka waxay ka hadlaan dareenkoodii iyo dareenkoodii ay ku sheegaan marka anagana waxaan la soo boodnaa halkii marka ayada hadafkeedu wuxuu ahaa inaad dareenkeeda la wadaagto oo aad la dareento marka anagana haddaan raggi nahay waxaan dhahaynaa saana lagu qaatay saan maxaa u sameyn weysay sida markaasay xaaskii shalay ka noqonaysaa marka taasna waxaa jiro is-afgaran waa muhiim in ragga iyo dumarka ay ogaadaan dabeecadahoodii ee kala duwan hadduu Ilaahay yiraahdo sidoo kale ragga markuu hawshiisa qabanayo ma jecla in la soo dhexgalo wuxuu jecel yahay inuu kaligiis sameeyo haddii xaaska imaado inay kaalmeyso oo kale wuxuu u maleynaa in hawshiisa ay ku faraxsaneen ama u maleynaa laakiin xaaska waxay ka tahay inay kaalmeyso marka kala duwanaanshahaas iyo yani in la fahmaa fiican hadda مثلا hadalka haddaan soo qaadano dhar aan xirto ma leh waxa dhici karta xaaska dumarka inay ula jeedo dhar jadiid ama cusayb ma haysto ninkan inuu ula jeedo dhar ii dhaqan ma leh dharkayga dhan waa wasakh marka in la fahmo oo kala duwanaanshahaas ragga iyo dumarka waa muhiim taas ayaa naga waana taas ayaa masiirkii ugu weynaa ee lagu gaari lahaa mawadadii Ilaahay uu ballan qaaday وجعل بينكم مودة ورحمة إلهي قريجين قري مودة له إلهي إذن كدقو عرورتيننا كوي إندها أكو خبوستان إلهي إذن كدقو آمين وبازي بسوري تي في يونيفرسال سومالي تي في ولكن بازي بسوري بارك الله فيكم